بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، إلهي سبحانه وتعالى في سورة التوبة وعرب سبحانه وتعالى وكور رميان السابقون الأولون أما كوي ديريي ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ridwaan iyo naxariis badan siiyey. waxaa kaloo aayaadka ku xiga alla subxaanaه wa tacaala uu kaga warramaya wa miman xawlakum min alacraab, kuwaasoo iyagana la yidhi munaafiqiin ayaa madiine iyo reer miyigaba ka tirsan maraduu cala nifaaq baa ilahay yidhi ku mudxay nifaaqnimada. koox saddexaad baa ilaahay tilmaamay subxaanaه wa tacaala. kooxda saddexaad ilaahay wuxuu ku sifeeyey waآakharuuna اctarafuu bidunuubihim khalaطuu camala صaalixا waآakhara sayiئa casى allahu an yatuuba calayh in allaha gafuur raxiim. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa waآakharuun kuwo kale, koox saddexaad oo aan labadaa kooxood midna ahayn. koox waxaa lagu tilmaamay inay koox dheeraysay tahay oo ansaar iyo muhaajiriin iyo waladiina tabacuuhum biixsaan. kooxda kalena waxaa lagu tilmaamay inay munaafiqiin munaafiqnimo la mudxay inay yihiin. kooxda saddexaad ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa waآakharuuna اctarafuu bidunuubihim. waa koox kale oo min alacraab iyo miman fi lmadiina labadaba ka mid ah, laakiin ilaahay wuxuu leeyahay ictarafuu bidunuubihim, qirtay dunuubtoodii gartay oo qirtay. ilaahay wuxuu ku sifaynayaa khalaطuu camala صaalixa wa aakhara sayiئa. waxay isku dareen baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala camal suuban iyo mid kale oo sayi'a oo xun bay isku dareen baa ilaahay yidhi. imaamu طabri raxmat ullaahi calayhi fii tafsiirihi wuxuu ku tilmaamayaa camalka saalixa ay halkan sameeyeen wa huwa اlictiraafu waاnnadm. waakharuuna اctarafuu baa ilaahay yidhi bidunuubihim, kuwa dembigoodii qirtay. imaamu طabri iyo imaamu اlbagawi labaduba iyo keyrkoodba tafaasiirtooda waxay ku tilmaamayaan khalaطuu camala صaalixan baa la yidhi. waxay kuwani sameeyeen ama isku dhex dareen camal wanaagsan iyo waآakhara sayiئa iyo mid kaloo xun. camalka wanaagsan ay sameeyeen wuxuu ku tilmaamaya inay tahay alictiraafu bidemb, oo ay culammadu yidhaahdaan alictiraafu bidemb, alictiraafu yahdamu اliqtiraaf bay yidhahdaan. inaad qirato dembigaaga ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad su dhul dhigto oo dembigaaga aada qiratid oo toobad ka dalbatid waxay dumisaa wixii dembiyee la galay. walidaalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa waxay isku qaseen camal saalixa iyo aakhar sayi'a. waxay mudan yihiin kuwaasi ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu toobadooda ka aqbalo. idan ikhwatii fi اlcaqiida, haddii shalayta sheekhu muxaadaradii uu kaga warramay taqwa اllahi subxaanaه wa tacaala, kanina waa xadiidkii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ee mucaad ibnu jabal. nebigu markuu ku yidhi mucaad awsini ama abidari alkhafaari iyo saxaabo kaleba noo dardaaran markay ku yidhaahdeen, ilaahay cabsidiisu uu dardaarmay subxaanaه wa tacaala inay ilaahay subxaanaه wa tacaala ka cabsadaan. taa iyada muran kuma jiro, waa saabiqiinta meeshoodii. waa ka nebi maxamed ilaahay leeyay yaa ayuha الnabiyu itaqi اllaah. nebi maxamed baa lagu yidhi. amaa dadka itaqi llaahidu ay dhibta la tahay, ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin kuwa xunxun fii suurati اlbaqara. waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ku xigsiiyey nebigu calayh الsalaatu wasalaam markuu taqwa اllahi tilmaamay, wuxuu u tilmaamay waatbici sayi'ata alxasana tamxuha. sayi'ada xumaha ta wanaagsan ka dabagee. culamaa ilxadiid barh ka mid ah waxay leeyihiin xasanada halkan la sheegayaaba hiya atawba waاlictiraafu bidemb. waa qofka oo markuu sayi'adii ka dhacday sameeyey qirtay oo ictiraafay dembigii. asalku waxa weeyaan in ilaahay laga cabsado aan la khilaafin, laakiin dabeecada basharka loo abuuray
ayaa inu khaطaa yahay dembiile inuu yahay wakhayru اlkhaطaa'ina tawaabuun nebiguna calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamay kuwa dembaabaya waxaa ugu fadli badan kuwa ilaahay subxaanaه wa tacaala u toobad noqonaya u soo noqonaya. ikhwatii fi اlcaqiida in badan baynu soo dembaabnay, in badan baynu acmaal xunxun soo samaynay, in badan baynu rabbi subxaanaه wa tacaala waxaan u cuntamin la hornimi. waxaynu u baahannahay ramadaanta tan inaynu in badan badinno toobadda iyo alla u noqoshada. ilaahi subxaanaه wa tacaala xadiidka imaam الbukhaari warinaya abu hurayra can الnabiyi salى اllahu عalيyh waalih wasalam uu nebiguna rabbigii ka warinayo, ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala addoon addoommahayga ka mida baa dembaabay, adnaba cabdu addoon baa dembaabay. markaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi adnabtu faqfir lii, ilaahay oo waa gafay, wuxuu qirtay dembigiisii, ilaaho waa gafay ee dembigayga dhaaf. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyaha calima cabdii ana lahu rabban yakfir الdanba waya'hudu bihi. addoonkaygu wuxuu gartay baa rabbi leeyahay subxaanaه wa tacaala inuu rabbi leeyahay dembiga dadka ku qaada kana dhaafa, waa uu dembi dhaafay baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. maadaama uu ilaahay gartay subxaanaه wa tacaala wاlgafuur الraxiim algafaar inuu yahay, ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala waa uu dembi dhaafay. xadiidkaasi rabbi laga warinayo subxaanaه wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahy dabeetana mudduu joogay addoonkii kadib ayuu haddana dembaabay, yaa rabb ayuu haddana bilaabay, ilaahu waa dembaaba ee ilaahu dhaaf. ilaahay subxaanaه wa tacaala weedhiibu ku celiyey, addoonkaygu wuxuu gartay inuu rabbi leeyahay dembiga dadka ka dhaafa kuna qaada, dembigiisa waan dhaafay baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu tilmaamayaa mar saddexaad haddana ayuu dembaabay addoonkii, markaasuu haddana dibu wuxuu yidhi yaa rabb adnabt, ilaahayo waa dembaaba ee fakfirhu lii, ilaahu ii dhaaf dembaabaye. rabbi subxaanaه wa tacaala haddana wuxuu ugu celiyaa addoonkaygu wuxuu gartay inuu rabbi leeyahay dembiga dadka ka dhaafa kuna ciqaaba ee icmal maa shi't faqad gafartu lak. waxaa lagu yidhi addoonka kan waxaad doonto samee, ilaahay baa dembigaaga dhaafay. yacni kii horena waa laga dhaafay, ta dambena rabbaa ku hanuuninayo jidka saxaad ku dhacaysaaye icmal maa shi'ta baa lagu yidhi. xadiidkan bukhaari warinaya rabbi laga warinayo subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa qof mu'mina oo qirtay dunuubtiisii, qof mu'mina oo gartay rabbigii subxaanaه wa tacaala caza wajallaaha inuu ku gafay, oo gafkiisa intuu qirtay ilaahay subxaanaه wa tacaala toobaduu la imanaya, ilaahayna subxaanaه wa tacaala uu u ballan qaaday inuu dembigiisa dhaafayo. oo weliba gafku inaan mar iyo laba iyo saddex toon ahayn uu ka dhacay, oo mar kastaba rabbi leeyahay subxaanaه wa tacaala mar hadduu addoonkaygu qirtay oo uu gartay inuu rabbi dembiga dhaafo kuna qaadana leeyahay, ilaahay subxaanaه wa tacaala uu leeyahay waanu dembi dhaafo. akhwatii fi اlcaqiida waxaynu u baahanay inaynu dunuubteenna garanno, inaynan isla qumanaanin, inaynu mid weyn iyo mid yarba garanno rabbi subxaanaه wa tacaala in badan inaynu ku gafnay. waa kay xadiidka kale bukhaari warinaya uu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam ku tilmaamayo addoonku hadduu dembaabo oo uu rabbigii u toobad keeno in alle subxaanaه wa tacaala ka aqbalo. ictiraafku laakiin wuxuu wax taraa inta dunida tan la joogo. waktiga intaad haysataa waa jaaniska intaad halka joogto, ama haddii balaayadu ay soo degto ama se aakhiro la tago, rabbi wuxuu inoo sheegayaa markaa inaan ictiraafku waxba tegin, waxuu taraa inaan jirin. wakam qasamnaa min qaryatin kaanat ظaalima waansha'naa min ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala tiro badana intaanu dhabarka jebinay tuulo ama magaalo rabbigeed ku dulmi samaysay, oo iyaga gadaashood aanu abuurnay qarnan aakhariin ama dad tiro badan oo kale. ilaahay wuxuu leeyahy kuwaasi falamaa axasuu ba'sana idaa hum yarkuduun, markay balaayada yadii dareemeen ayay orod bilaabeen baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala.
dabeetana waa lala hadlo waxaa la yidhi laa tarkuduu warjicuu ilaa maa utriftum fiih wamasaakinikum lacallakum tus'aluun waar ha guclaynina baa la yidhi oo ha raacina balaayada markay arkeen iyo in ilaahay halaagayo halaaggu soo socdo ayay orod bilaabeen baa ilaahay yidhi guclo dabeetana waxaa lagu yidhi waar waxba ha guclaynine guryihiinni iyo wixiinni dib ugu noqda waa laga yaabaa in laydin weydiiye ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxay yidhaahdaan waxaanu rabbigayow inaa kunaa ظaalimiin bay ku dhawaaqaan famaa zaalat tilka dacwaahum xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiin baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahayo waa dembaab waa dulmi baanu samaynay bay ku celceliyaan baa ilaahay yidhi kama zuulaan inay weedhaa ku dhawaaqayaan baa ilaahay yidhi ilaa iyo aanu ka yeelno xasiid la gooyey midho la goostay ilaa aanu ka dhigna baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ictarafuu laakiin waxay ictiraafka la yimaadeen wakti aan ictiraafku waxba taraynin rabbanaa amatna اtnatayn waxyaytana اtnatayn faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil ilahay wuxuu tilmaamayaa qaar kaloo calaacalayoo leh qaaluu rabbana ilaahayow laba goor baadna dishay waanadna doloedaysay laba jeer dunuubtayadiina haddaanu ictiraafnay ee fahal ilaa khuruujin min sabiil dunidii dib mana loogu celin karaya aanu camal suuban samaysanne dib mana loo celinaya waxaa rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka inoogaga warramaya malaa'igta naarta haysa iyo duul naarta ku jiro oo doodi dhex marayso oo ay leeyihiin war miyaan kuwa digaa idiin imanin maya waa noo yimaadeen laakiin waa isdhagamarray bay yidhahdeeno markaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu ma kuna fii asxaabi saciid faاctarafuu bidamb ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacala waxay dhahay haddaanu dhega yeelan lahayn ama wax maqli lahayn ama caqli jiri lahaa markaanu dunida joognay maanan ka mid noqoneen kuwa cadaabu saciirka gala waxay ictiraafeen baa ilaahay leeyahay dembigoodii markan ictiraafku waxba ma taro fasuxqan liasxaabi saciir baa ilaahay yidhi idan ikhwatii fi lcaqiida hadda intaynu halkan joognaa ictiraafku waxayna tarayaa towbaddu waxay ka bilaabantaa qofkoo gartay inuu dembaabay kaanis ogeyn inuu dembaabay dee maba toobad keeno ile maba oga waxuu dhimayba garan maaye kase mu'minka ah ee qalbigiisu weli noolyay ee iimaan ku sii jiro walow acmaasha xunxun qaarkeedna ha ka dhacaane dib buu xasuustaayo wuxuu gartaa rabbigii weynaaye nimceeyee abuuray inuu ku gaboodfalay dabeetana wuxuu bilaabaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigo oo toobadu keeno ama marka cadaabka ilaahay soo dego haddaynu ictiraaf la nimaadno marka balaayooyinku inay qabsadaan haddaynu idhahno ilaahay ow haddaanu ku ictiraafno ama se marka aakhiro la tago haddaynu bilowno ee layna soo bixiyo ilaahu laba jeer baa dunida na dishay oo na noolaysay haatan ma jira dib ma laysu celinayaa ama se marka naarta lagugu guro haddaad malaa'igta la doodo oo tidhaahdo haddii caqli jiri lahaa amaanu wax maqli lahayn faاctarafuu bidunuubi waxaasoo ictiraaf waxba ma taraan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala ictiraafku wuxuu wax taraa ikhwatii fi lcaqiida intaynu halkan joogno idan toobaddu ama khalطuu camala صaalixا waaakhara sayi'an casa allahu an yatuuba calayhim camalka xun ee la sameeyey haddii lagu daro mid wanaagsan oo aan toobad lala yimaado ama sayi-adii inaga dhacday haddaynu xasano ka dabageyno oo xasanaadkay u horayso toobo tamxuha waa tirtiraysaa walidalik buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya iyo muslim baan rajaynaya saxiixa ah calaa kulli xaal waxa uu ina baray duco haddaynu ku ducaysano maalintii oo maalintaa aada geeriyooto adigoo yaqiinsan ducada haddaad akhrisato oo maantii aada geeriyooto inaad janno gelayso habeenkii haddaad ku ducaysato adigoo yaqiinsan oo habeenkaa aada geeriyootana inaad janno gelayso idan haddaad maalintii akhrisato oo geeridaadu maantaa timaadana ahlu jannaatay haddaad habeenkii akhrisato oo habeenkii geeridaadu timaadana ahlu jannaatay waa maxay allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa ant khalaqtanii waana cabduk waana calىa cahdika wawacdika ma اstaطact acuudu bika min shari ma sanact abuءu laka binicmatika calaya
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. nebigu wuxuu yihi عalayه الصلاaةu وaسلاaم qofka yidhaahda اللaهuma أnta رabي laa إلaha إلا أnt ilaahay adaa rabbi ii ah adaa i abuuray adaa arrinkayga maamula adaan ku hoos joogaa gacanta igu hayo arrinkayga o dhan maamula laa إلaha إلا أnt khalaqtanii twxiid الrububiya qofka la yimaadee ilaahay maamulka u ogolaada twxiid alcibaada la yimaada ee yidhaahda ilaahay o aniga xaggaygana wixii kas yimaada adigunbaa xaq ule cibaado ah labadaba qira baa ilaahay leeyay rumaysan in ilaahay nicmeeyey oo uu abuuray qirta ilaah adna waad i abuurtay anna addoonkaagii baan ahay ilaahay ka magan gala wixii shar uu sameeyey u ballan qaada alle subxaanaه wa tacaala inuu cahdigiisa iyo ballankiisa ku sugnaanayo intuu awoodo oo isagoo garanaya xaaraanta inaanu jiidhaynin isagoo garanaya dembiga inaanu ku rooraynin ilaahay subxaanaه wa tacaala wacdigiisa iyo cahdigiisa ilaalinaya intuu awoodo kadibna yidhaahda ilaah waxaad nimco i siisay waa kuu qiraya abuءu laka binicmatika calay ay actarif ilaah waa qiraya waxaad nicmo i siisay wa abuءu laka bidanbi ilaah waxaan kaloo qiranayaa ictiraafaya halkaan mahad ka celin lahaa wixii foolxumo iga yimid sayi-aadkaygina waan qiranaya ee ilaahu dembigayga dhaaf adigaa dembiga dhaafe ninka intaa yidhaahda buu nebigu yidhi calayh الsalaaةu wasalaam man qaalaha wa huwa muuqinun biha ninka yidhaahda isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo ay qalbigiisa ku jirto hadduu maalintaa dhinto waa ahlujanna buu nebigu yihi calayh الsalaaةu wasalaam hadduu habeenkaa dhintana waa ahlujanna buu nebigu leey calayh الsalaaةu wasalaam idan dariskeenna maanta wuxuu ku kooban yahay war wixii sayi-aad inaga dhacay waxaynu foolxumo samaynay ka umma haddaynu nahay ummad ahaan ka shacab haddaynu nahay dowlad haddaynu nahay afraad haddaynu nahay culamo haddii la yahay cid waloo dadka ka midii way dambaabtay waxaynu u baahanay inaynu dunuubteenna qiranno oo iyo u qiranno rabbigiina abuuray subxaanaه wa tacaala inaynu ictiraafno ramadaan baynu ku jirnaa rabbaynu u soomannay isagaynu fooda dhulka u dhigaynaa isagaynu u afxidhannahay isagaynu ka cabsanaynaa inaynu ictiraafno wuxuu nimcayna siiyey iyo waxaynu foolxumo kala hortagnay aynan mahadnaqine in badanoo foolxumo aynu samaynay haddaynu kaa ku dadaallo ictiraafkaasi waa toobaddu halkay ka bilaabanto ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanaه wa tacaala inuuna waafajiyo aakhiradeenna iyo adduunkeennaba kuwii rabbigooda caabuda ee u toobad keena ee rabbi subxaanaه wa tacaala jidkiisa qaada ilaahay subxaanaه wa tacaala haynaga yeelo intii ina dhashayna allah u naxariisto intii waxayna bartay allah u naxariisto intii xaq inagu lahayna allah u naxariisto subxaanaه wa tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala dadka mu'miniinta dembigooda ha dhaafo khayrkana allahayna waafajiyo akhriya adduunba صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين